waa laga hadlay fooxu waa resource yani gabadh baa maanta ka hadashay waliba si fiican waxaan rabi lahaa sheeko yar inaan sheego oo foox timi investor ah dad bay soo kaxaysatay halkana reer Puntland hadda ka horna waa sheegay waxay u tagtay reer bay u tagtay meesha la yiri waa laga helaa foox arajo bay yiraahdeen waxay yiraahdeen hada baaye dhulkaagii ma orday hebel u tag waa sheeko runa way tagtay reerkii bay doontay iska dhigaas baro oo maaragtay sayasa maxaa loo jiray say wallahi waa tagtay waxay u tagtay qolo kale waxa la adiga laftaas aadayd waliba reerkii u tagtay laftaha baaye halkan ma xaga aad ultimately gabadhii she quit resources aynu ku fadhino waa ka dhimanaynaa marka waa in dadka haya lacagta loo ogolaado si ay markaa dadka gaashada uga bixiyaan wax soo saaraan manufacturing la'aantiis shaqo lama abuuri karo industry la'aantiis shaqo lama abuuri karo wartoonta aynu soo saarno oo beeyadan iyadoo sideeda $15 inta boosaaso lagaga iibsado marka Abu Dhabi la geeyana 1,200 noqon value addition ayaa inaga maqan beeyadu imisa xoo qaybsantaa waa dawo waa biyo waa essential oil waa xanjo waa makeup whatever you name it anigu hadda ma wada xusuusto xooluhu waa sidaas oo kale fideeni oo socotaynu dhoofinaa haragii iyo saamihii iyo lafihii iyo cheese-kii iyo beerkii iyo kaliyihii waa saas marka mid kasta marka xisaabisan I did work on this waxa ku jira boqolkiiba 2000% baa khasaaro dadka ku ah geela waa sidoo kale ariga waa sidoo kale lo'da waa sidoo kale liinteena iyadoo duuduuban oo qaraad oo la qalajiyay baa la dhoofiyaa inaguna waxaan soo aridana biyo ay sonkor ka buuxdo oo maanta miisaska aan ku wada arkayay oo Coca-Cola ah waxay taa inay product-kaasi quality-geedu fiican yahay ama ay healthy tahay la ogeyn how much time 1 minute marka hallo beeraha iyo industry-ga iyo dadkan baa mushtarka yar inta dawladda la isku leenayo haddii aad leedahay 16 xildhibaan baa loo cararaya hadda reerka iyagu qaar baaba idili lahaa hadaan u carari lahaa waayo wuxuu keenay 66 xildhibaan in Soomaalidii la oran jiray qabiilku laba shaqo qabtaa inuu reerka kii qaldan qabto iyo kii gaajaysan inuu quudiyo labadii waa laga tagay waa la isdilayaa waayo halka boos waa la isku leenayaa laakiin haddii loo dareero wax soo saar iyo production and rekindling livelihoods waa kala wareerayaa siyaasiyiinta waxa loo deynayaa maaragtay kuwa wax soo saarkiisa keeni waayay marka livestock waxaan haysanaa highest per capita in the world it's a fact laakiin xoolaheena duudu baa lagu qaataa ama abaaraha dhameeya inaan diyaar u ahayn waa laga hadlay kalluumaysiga Puntland waxaanu haysanaa meesha ugu dheer hadday loo sameeyo regulatory apparatus-kii loo baahnaa fishing post hala sameeyo badanu waa dheer tahay laakiin maraakiibta adduunka ayaa ka dukaansada ma difaaci karna xitaa marka dadka laftigoodu mindset-ka in la bedelo waa muhiim